شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا diin iyo daalac waa sheeko uu qoray qoraa maxamed aw cali cartan wuxuu ku qoray buuggiisa la yidhaahdo miisaanka nolosha. Sheekadan waxay ka waramaysaa nin ganacsade ah isla markaana aad ugu hami jiray inuu maalqabeen noqdo. Ninkaas wax badan buu tabci jiray, wax badan buu waqtigiisa gelin jiray inuu adduunyo ururiyo oo dhaqdo. Ninkaasi waxaas uu waqti gelinayo haddana markuu xisaabiyo isaga deyn lagu yeelan jiray. Marka sanad laga soo wareego oo kale ayuu xisaab xidhsameyn jiray, dabadeedna wuxuu arki jiray in deyn lagu leeyahay. Markaas ayuu soo jiray malaha adiga hakraday oo sidii la rabay aanu dadaalkiisu si laban laabi jiray. Markuu wax badan geliyo oo waqti iyo fikir ah ay sanad oo kale ka soo wareego ayuu mar labaad xisaab xidhsameyn jiray, haddana wuxuu arki jiray in isagu deyn lagu leeyahay. Ninkii wuu yaabay, wuxuu sameeyay inuu garan waayay, isla markaa wuxuu raadiyay inay saaxiib ahaayeen oo uu talo iyo aqoon ku tuhmayay. ninkii buu raadiyay magaalo kale deganaa, muddo u sii lugeynayay. Wuxuu saaxiib arrintaas ay haysata wax walan sameeyo ganacsigeygii uu horumar la'yahay, aniga deyn lagu yeelanayaa. Ninkii wuxuu yiri arrintaada nin iiga cilmi badan oo iiga tala qabansan ayaa magaalada jooga, ninkaasan kuu geynay. Ninkii markii arrintii looga waramay wuxuu yiri sheekadaada si fiican baan u fahmay, 7 arrimood ayaan kuu sheegayaa ka ee ganacsigaaga haddii ku jiraan iska sax, markaas uu ku barakoobay insha Allah. Wuxuu ku yiri tan koowaad in habaar waalid jiro oo aad xagga waalidkaaga habaar kaaga socdo. Tan labaad in biicaaga been ku jirto oo waxaad iibinayso aad been ku iibiso sixirka. In hanti xaaraan ah ku jirto oo si uun ku soo gashay. Tan afraad in aanad sadaqada ka bixinin. Tan shanaad in miisaanka aad khafiifisid. Tan lixaad in farjigaaga aanu dhowrnayn ama aanad sinan ka dhowrsanayn. Tan toddobaad wuxuu ku soo gabagabeeyay in xaasidnimo qalbigaaga ku jirto si uun cid xaqdi laabta ugu hayso. Ninkii markuu taladii dhageystay uu ka tagay ninkii caaqilka ahaa, meeshiisii buu ku noqday. wixii adduunyaha wuu wada bixiyay, dadku u qaybiyay, si roob ka soo bilaabay nolol cusub, ganacsi cusub. Muddo kadib ninkii guryo waaweyn buu dhistay, Ilaah baa wixii soo barakeeyay, xalaal bay u noqdeen. Ninkii caaqilka ahaa buu raadiyay, martiqaad buu u fidiyay, wuxuu yiri oo mahad celinayaa taladaadii waa i anfacday, adidna waan ku siinayaa gurigan aan ku jirno, guri weyn oo qurux badan oo dhistay, gurigan aan ku jirno furihiisa waa ka adigan ku hadiyeynaya. hal su'aalna waan qabayay iga jawaab, berigii aad talada i siinaysay miyadii garanaysay mise saaxiibkii baa iga ka sheekiyay? May buu yiri ninka caaqilka ah kuma garanayn. Wuxuu yiri wixii aad ka hadlaysay oo dhan aniga way ku jireen xoolahayga iyo noloshayda, sida qofkii garanayo kale ayaad iga warantay. alxamdulillah imka way anfacday, aad iyo aad waad mahadsantahay. halkii ninkii guriga ku guddoonsiyay